asxaabta aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Dad badan baa ila soo xiriira oo yiraahday iyada arrintani way nagu dhacday. Waa arrin ma aragtay markasta nagu dhacday sidee baad u ogaatay inaad niyaddeena annaka aad naga sheekeynaysaan u malaynay markaa. Walaalayaal waxani waa social problem. Qofkii isu qaatana asigay jirtaa. Marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo. Qofkan aan ka hadla aan iraahday digriyaal buu qaadanaya. Sidee buu dadka maxaa la yiraahdaa ee u aaminaan qofkani horta ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo anigu socially baan ka hadlayaa. Waa qof ama jecel waa qof salaada kaaga horey masaajidka laynka hor tukada sadaqada waxa ugu badan buu bixiyaa. Waxa weeyaan meel hadda wax lagu leeyahay waa the first person ee wax sameeya. Marka adiga niyadaada waxa gelaysa hebel ama heblaayo waa qof kala xidhan. Waa qof aamina. Aaminaadaasi wax badan ayaa ma aragtay maskaxdaada ay ka qaadaa. Maxay ka qaadaa? Waxay ka qaadaa maxaa la yiraahdaa qofaad aamintay xumaan agtiisa uma tirinaysa. Marka maxaa dhaca marka? Waxa dhaca qofkan markaad ama meel iskugu timaadaan uu rabo balaankan inaa fuliyo waa inay dan iskugu keen xiriirisa badanaa dumarka gooraha uu qofkani soo eegto waa marka ma aragtay muraad la leeyahay haddaad hagbad ku jirto group badan oo ma aragtay attention kaaga una joogin tacsi ha noqoto aroos ha noqoto maxaa la yiraahdaa malcaamad ha noqoto meel lagu badan yahay bulshada ku badanta ayuu horta qofkani target gareeya wuxuuna ku target gareynaya maxaad qofkan ka gashay waxbana kamaad gelin laakiin amaanta maadaama wasagu ku nool yahay amaan habeen iyo maalin uu rabo wax amaana adu farta isku fiiqanay dan adiga kaama laha laakiin amaantaaba ku diidaya. Maxaa dhacaya marka? Waxa dhacaya adigoo ma aragtay hawl ku mashquulsan oo time qofkii u haynin maxaa la yiraahdaa ayaa qofkii ma aragtay diiradda ku saaraya. Markuu diiradda ku saaro maxaa dhacaya adigii busy baad tahay. Haddaad tahay inaad wax ururinayso fundraising sameynayso hadday hagbad tahay intaas marba qof wax ula tagay heblaayaha sidan iyo kan baa dhacay heblaayo kan kale wixii waxaad arkaysaa haddaad laba shay aad kunudo wixii kala furmanaya calaamadaha koobaad naaxalkii baa lagaaga imaaday ilaa marba qof baa loo tagay waxa la leeyahay waxa kala tuur. Marka maxaa dhacaya adigii iska baraad la ilaa wuxuu samaystay 9 ama 5 ruufiyaan ma aragtay arrintan u fuliye wixii soo dhanaya qofka inta la amaani lahaa ama uu magac qaadan lahaa ku baxdil meeshi wuxuu sidaa u taabtaba ka kala tuur. Marka haddaad isku aragto calaamadaha shay ama muraad aad u dhaqaaqday oo waxaad saas u taabataba hafla la odhanay horta waa calaamadaha waa lagugu soo jiraa. Ma guuleysatay maalintaad guuleysatay baaba aad ugu daranta qofkii waxaad u noqonaysaa cadow number 1 adigoona is ogeyn. Marka halkaas la fulinaya arrintii maalintii hore part 1kii waa nakii ka soo hadan qofka marka dambe maxaa ku dhacaya ilaa maalinba sidoo qof u galay cuquba u ururtay cuqubadii markay u ururtay waxaad maqlaysaa qofkii leh halkana tabcaan baan aho dhakhtar baa la igeenayaa waa qofkii cuqubada ka galay ama bini aadan oo dhan ka soo galay waa la ilaastay halkan ay xanuunaysa beerka la igu dhagan yahay oo maalin kasta dad baad ka dhex toosaysaa maxaana beerka lagaaga dhigi waay. Marka qofka waxaad arkaysaa 24 hours markaad aragto uu cabanaya xaalad caafimaad buu ka cabanaya halkan ay xanuuntay waan dhaqaaqi kari waaye wax waan samaysan kari waaye. bini aadanow haddaad waxaan isku aragtaan iska daaya adna haddaa lagugu soo jiro oo aad aragto aaminaadan badan hal iska daayo
ka dignow haddaad wax samaysanayso adigoo ma aragtay af aamusan samee meelaha lagaa abaarayo waa meelaha gaadhkaagu uu hoosay isku day Soomaalidu waxay tidhaahdaa waxaanu qofku arkaynin kuguma cuno wixii ha tusin haddaad wax samaysanayso wixii si qunyara haddaad wax ku darsanayso qof si qunyara laakiin public waa meelaha la iska soo raaca adiga qofkani dan kuma laha laakiin dantu leeyahay waxa weeyaan yeena amaani dhaafin markaa amaanta oo kugu haysto haddaad sadaqa bixinayso sadaqada qunyar u bixiso haddaad bixinayso haddaad ama muraad aad samaynayso si fudud u samayso ha istusinba because badana dadka la taageet gareeyo waa aniga sheegay waa qof daacada waa qof dabacsan waa qof bulshada ka dhex yara muuqda qofkani wuxuu isku dayayaa inuu sariir ku saaro qofkani wuxuu isku dayayaa inaad ma aragtay su'aalo badan aad isweydiiso markaa isku day haddaad bini aadam tahay islaamii hore waxay odhan jireen wax kasta qarsoodi u samee wax kasta adigoona lagu ogeyn saqar yari iska ilaali meelaha lagaa soo raacay meelaha ama aad abaabulaha u noqonayso ama daacadnimada aad u shaqaynayso ama aad u waaninayso qofkaasi problem kale ma haya waxa weeyaan ana caruurtiisa ugu fiican shaqadiisa ugu fiican maxaa la yiraahdaa wixiisa ugu fiican challenge buu kugu jira marka challenge kan haddaad soonihiisa aad soo gasho way ku dhamaatay marka sheekadan imtixaan noqonaysa insha Allah next week waxaan ka soo hadli doonaa saaxiibka fiican iyo saaxiibka xun si loogu kala garto bye guys bal reaction kiina ii soo dira